Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Mahad oo idil waxay u sugnaatay Alle subxaanahu wa tacaala, allahaasoo uumay samooyinka iyo dhulalka, kana doorta cidda uu doono, sharfana cidda uu doono, kana dhiga kuwo ku suntan iimaan, cibaado iyo daacadnimo. Taariikhda bani aadamka waxaa soo maray qoysas badan, boqorro badan, culimo badan iyo ummado aad u fara badan. Balse waxaa jiray qoysas gaar ah oo Alle subxaanahu wa tacaala si gaar ah u doortay, kuna maamuusay sharaf aysan dadka kale la wadaagin. Qisadeena maanta waa qisada qoys ka mid ah qoysaskaas uu Alle subxaanahu wa tacaala doortay. Qoys uu Alle subxaanahu wa tacaala magacooda ku xusay Qur'aanka Kariimka ah dhexdiisa. Qoys uu Alle subxaanahu wa tacaala ugu magac daray suurad dhan oo ka mid ah suuradaha ugu waaweyn Qur'aanka Kariimka ah. Qoys ay ka dhasheen ambiyo, saalixiin iyo dad cibaado iyo taqwo ku caanbaxay. Waa qisadii reer Aali Cimraan. Waa qoys uu Alle doortay subxaanahu wa tacaala. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala Qur'aanka Kariimka ah dhexdiisa ku yidhi: Inna Allaha astafaa Aadama wa Nuuxan wa aala Ibraahiima wa aala Cimraana cala alcaalamiin, dhurriyatan bacduhaa min bacdin wallaahu samiicun caliim. Aayaddan wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala si cad inoogu sheegay in uu doortay 4 qoys ama 4 nasab oo uu ka sarraysiiyey dadka intooda kale ama dadkii noolaa waqtigooda. Waxaa ka mid ah nebiyullaahi Aadam calayhi salaam, nebiyullaahi Nuux calayhi salaam, iyo reer nebiyullaahi Ibraahim calayhi salaam, iyo weliba reer Aali Cimraan. Macnaha Alle ayaa doortay ma ahan in ay dadka kale ka xoog badnaayeen ama ka maal badnaayeen. Waxay kaga sarreeyeen iimaan, daacadnimo, cibaado, taqwo iyo ateecidda Alle subxaanahu wa tacaala. Sidaas darteed ayuu Alle subxaanahu wa tacaala sharafkooda kor ugu qaaday. Marka aynu maqalno magaca reer Aali Cimraan, waxaa muhiim ah in aan fahanno in aysan ahayn qoys caadi ah. Waa qoyskii ay ka dhasheen Maryamata binti Cimraan calayha salaam, iyo nebiyullaahi Ciise calayhi salaam, iyo nebiyullaahi Yaxye calayhi salaam. Waa qoys ay malaa'igtu la hadashay. Waa qoys ay mucjizooyin waaweyn ka dhaceen. Waa qoys ay dunidu ilaa iyo maanta xasuusato. Haddaba yuu ahaa Cimraankan ee aabbaha u ah qoyska aan ka sheekaynayno? Culimada tafsiirku waxay sheegeen in taariikhda bani Israa'iil ay soo mareen 2 nin oo magacooda la oran jiray Cimraan. Labadaas nin waxaa u dhexeeyey qarniyo aad u fara badan. Qaar ka mid ah culimadu waxay sheegeen in ay u dhexeeyeen ku dhowaad 1800 oo sano. Cimraankii koowaad wuxuu ahaa ama wuxuu noolaa xilligii faraacinadii Masar. Wuxuuna ahaa aabbihii nebiyullaahi Muusa calayhi salaam iyo weliba nebiyullaahi Haaruun calayhi salaam. Sababta ay culimadu sidaas u yiraahdeenna waxaa ka mid ah, waxaa jira xadiisyo uu nebigu sallallahu calayhi wasallam ku sheegay nebiyullaahi Muusa calayhi salaam, isagoo ku magacaabay Muusa bnu Cumraan ama Muusa bni Cimraan Safiyullah. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu Nebi Muuse ku tilmaamay Muusa ibnu Cimraan, taas oo muujinaysa in aabbihiisa la oran jiray Cimraan. Sidoo kale habeenkii Nebiga sallallahu calayhi wasallam la dheelminayay ee al-Israa wal-Micraaj loo yaqaano, wuxuu Nebigu sallallahu calayhi wasallam yidhi: marartu laylata usriya bi calaa Muusa bni Cimraan. Nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay in uu arkay Nebi Muuse habeenkii la dheelminayay ee al-Israa wal-Micraaj isagoo ku magacaabay Muusa ibnu Cimraan. Taasi waxay caddaynaysaa nasabkiisa. Haddaba yuu ahaa Cimraankii labaad? Qisadeena ugu weyn waxay ku saabsan tahay Cimraankii labaad ama Cimraankan labaad ee aan hadda sheegi doonno. Ninkan waxaa la oran jiray Cimraan binu Maathaan. Wuxuu ka tirsanaa faracii nebiyullaahi Sulaymaan binu Daawuud calayhimussalaam.
wuxuu ku noolaa baytulmaqdis, magaalada muqadaska ah ee uu ku yaallo masjidul aqsa. wakhtigaas reerkiisu waxay ahaayeen dadkii ugu sharafka badnaa reer banu israa'iil. waxay ahaayeen culimo, hogaamiyayaal diimeed iyo dad cibaado badan. cimraan wuxuu ahaa nin saalix ah oo dadka salaada u imaamin jiray ama dadka salaada tujin jiray. waxaa lagu yaqaanay cibaado, cilmi diineed, daacadnimo iyo alle ka cabsi. xaaskiisuna waxay ahayd haweenay saalixad ah, magaceedu wuxuu ahaa xanna bintu faaquut. waxay ahayd haweenay alle aad ugu dhow. maalin kasta waxay maalinteeda ku noolayn jirtay cibaado, duco, soon iyo xuska alle subxaanahu wa tacaala. balse waxay lahayd hal murug oo weyn, ama waxaa jirtay hal arrin oo mar walba ka murjin jirtay, taasoo ahayd muddo dheer wax carruur ah ma aysan dhalin. sannado badan ayay sugaysay ilmo. waxay aragtay haween badan oo carruur leh, waxay maqashay codadka carruurtooda, waxay aragtay qoysas badan oo faraxsan, balse iyadu weli ilmo ma aysan helin. si kastaba ha ahaatee ma aysan quusanin. waxay ogayd in alle subxaanahu wa tacaala yahay kan arsaaqda bixiya. waxay ogayd in haddii uu alle subxaanahu wa tacaala doono wax walba ay suurtagal yihiin. sidaas darteed waxay bilowday in ay si joogto ah alle u barido subxaanahu wa tacaala maalin kasta, habeen kasta iyo sannad walba, ilaa uu alle subxaanahu wa tacaala ka aqbalay ducadeeda. markii ay dareentay in ay uur qaaday, qalbigeeda waxaa galay farxad aad u weyn. balse farxaddaasi kuma aysan ekayn in ay ilmo heshay oo keliya. waxay go'aansatay in ay ballan gaar ah la gasho alle subxaanahu wa tacaala. waxay niyeysatay in ilmaha uurkeeda ku jira uu noqon doono addoon alle u go'ay subxaanahu wa tacaala. waxay rabtay in ilmaheeda ama ilmaha ay dhali doonto uu noloshiisa oo dhan ku bixiyo cibaadada alle iyo u adeegidda baytulmaqdes iyo faafinta diinta. markaas bay waxay tidhi: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. waxay tidhi: rabbiyow, ilmahan calooshayda ku jira adiga ayaan kuu hibeeyey si uu kuu caabudo oo uu kuugu adeego beydkaaga barakaysan. allahayow iga aqbal. xanna ma aysan ogayn waxa uurkeeda ku jira. waxay u malaynaysay in uu wiil noqon doono, waayo xilligaas u adeegidda baytalmaqdis waxaa badanaa qaban jiray ragga oo keliya. balse qorshaha alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ahaa mid ka weyn wixii ay iyadu filaysay, qorshe beddeli doono taariikhda adduunka oo dhan. balse maxaa dhacay markii uu ilmihii dhashay? sidee ayay maryamo calayha salaam ku dhalatay? sidee buu nebiyullaahi zakariya calayhi salaam u noqday qofkii korin lahaa maryamata binti cimraan? markii ay cimraan xaaskiisa xanna bintu faaquut ay sugaysay maalintii ay ilmaheeda dhali lahayd, qalbigeeda waxaa ka buuxay rajo ah in ilmuhu uu noqon doono wiil si uu ugu adeego baytulmaqdiska sida ay ugu nidartayba ama horeyba ay ballan ula gashayba alle subxaanahu wa tacaala. balse markii wakhtigii dhalmada la gaaray, waxaa dhacay wax aysan filaynin. waxay dhashay gabar. markii ay aragtay ilmaha yar ee gacanteeda ku jira, waxay fahantay in qorshaha alle subxaanahu wa tacaala uu ka duwan yahay qorshaheeda. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aanka kariimka ah dhexdiisa ku yidhi: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. xanna waxay tidhi: rabbiyow, gabar baan dhalay. ma ahayn cabasho, ma ahayn diidmo, waxay ahayd warbixin ay alle subxaanahu wa tacaala u sheegaysay. waxay ogayd in adeegga baytulmaqdis caadi ahaan loo xuli jiray wiilasha, balse alle subxaanahu wa tacaala ayaa ogaa waxa ku jira qadarkiisa.
gabadhan yar ma noqon doonto gabar iska caadi ah, waxay noqon doontaa haweenayda ugu sharafta badan dumarka dunida soo maray oo idil. Waxay noqon doontaa hooyada Nabiyullaahi Ciisa calayhi salaam. Waxay noqon doontaa Maryamata binti Cimraan. Magaca Maryan ee luqaddii Bani Israa'iil wuxuu u dhignaa haweenaydii ama haweenay cibaado badan ama mid Alle u go'day subxaanahu wa tacaala. Isla markii ay magaceeda u bixisay Xannaa, waxay Alle subxaanahu wa tacaala ka magan gashay shaydaanka iyada iyo carruurteeda mustaqbalkaba. Waxayna ahayd duco uu Alle u aqbalay subxaanahu wa tacaala. Markii ay Maryama xoogaa yara kortay, hooyadeed waxay fulisay nidarkeedii ama ballankii ay Alle subxaanahu wa tacaala la gashay. Waxay gabadheeda u qaaday Baytalmaqdis. Xilligaas Baytalmaqdis waxaa maamuli jiray culimo badan oo ka soo jeeday reer Nabiyullaahi Haaruun calayhi salaam. Markii ay arkeen Maryama, waxay wada ogaayeen in ay tahay gabadhii uu dhalay hogaamiyahoodii Cimraan oo markii hore masaajidka tujin jiray oo imaamka ahaa markii uu noolaa. Culimadii masaajidka ku sugnayd dhammaantoodu waxay doonayeen ama qof walba wuxuu doonayay in uu helo sharafka korinteeda. Waxaa bilaabatay tartan, qof walba wuxuu rabay in isagu uu noqdo qofka mas'uulka ka noqon doona Maryama. Balse qofka ugu mudan wuxuu ahaa Nabiyullaahi Zakariya calayhi salaam. Sababtoo ah xaaskiisa waxay qaraabo dhow la ahayd gabadhan yar ee Maryama. Hase yeeshee culimadii kale si fudud kuma aysan aqbalin. Ugu dambayntii waxay isku raaceen in qorituur lagu kala baxo. Culimadii waxay soo qaateen qalimadoodii ay Towraadka ku qori jireen, kadibna waxay tageen webi socda. Qof walba qalinkiisa ayuu biyaha ku tuurayay. Waxaa lagu heshiiyey qalinka biyaha ka hor yimaada ama si gaar ah ugu dul sabeeya ayaa noqon doona calaamadda qofka guulaystay. Markii qalimada la tuuray, waxaa dhacay arrin mucjiso ah. Dhammaan qalimadii waa ay quuseen ama biyaha ayay wada raaceen. Balse qalinkii Nabiyullaahi Zakariya calayhi salaam wuxuu dul sabeeyey oo ka soo horjeestay jihadii ay biyuhu u socdeen. Sidaas darteeda Alle subxaanahu wa tacaala ayaa u doortay in uu noqdo qofka Maryama kafaala qaadaya. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Aayaddani waxay caddaynaysaa in culimadii Baytulmaqdis ay qorituur sameeyeen si loo ogaado qofka korin doona Maryama. Alle subxaanahu wa tacaala ayaana Nabiyullaahi Zakariya calayhi salaam sharaftaas u doortay. Nabiyullaahi Zakariya calayhi salaam wuxuu Maryama u dhisay meel gaar ah oo ay ku cibaadaysato oo ay ku noolaato. Qolkaasina wuxuu ku yaalay gudaha Baytalmaqdiska. Cidna uma geli jirin markii laga reebo Nabiyullaahi Zakariya calayhi salaam. Maryama waxay ku barbaartay salaad, soon, duco iyo xuska Alle subxaanahu wa tacaala iyo akhrinta kutubka ama kitaabka Alle subxaanahu wa tacaala. Waxay ahayd gabar ka duwan hablaha kale. Markii ay gabdhaha kale ciyaarayeen, iyadu waxay ku mashquulsanayd cibaadada Alle subxaanahu wa tacaala. Markii ay dadka kale iska hurdayeen, iyadu waxay u taagnayd salaada habeenkii ama salaatuleylka. Maalin kasta iimaankeeda ayaa sii kordhayay ama sii korayay. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu Nabiyullaahi Zakariya calayhi salaam wuxuu u galay qolkii ay Maryama ku noolayd. Markaas buu wuxuu arkay wax uu aad ula yaabay. Waxaa horteeda yaalay miro cusub, miro aanan wakhtigooda la joogin. Xilliga jiilaalka wuxuu arkayay miro soo bixi jiray xilliyada xagaaga ama xilliyada xagaaga la helo. Xilliga xagaagana wuxuu arki jiray miro xilliga jiilaalka la helo ama jiilaalka soo baxa. Zakariya ama Nabiyullaahi Zakariya calayhi salaam waa uu la yaabay. Wuxuu ogaaday in aysan jirin cid qolkaas gashay ama cid kale oo qolkaas gudaha ugu gashay. Markaas ayuu weydiiyey. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala Qur'aanka Kariimka ah dhexdiisa ku yidhi: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا
قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. maryama waxay sheegtay in arsaaqdaasi ay ka timid xagga alle subxaanahu wa tacaala. waxay ahayd karaamo uu alle subxaanahu wa tacaala siiyey addoontiisa saalixadda ah. nebiyullaahi zakariya markuu arkay arrinkaas, qalbigiisa waxaa galay rajo cusub. wuxuu xasuustay in isaga iyo xaaskiisu ay aad u duqoobeen, muddo dheerna aysan wax carruur ah dhalin. balse markuu arkay in alle subxaanahu wa tacaala maryamo siinayo midho aanan xilligooda la joogin, wuxuu xasuustay in alle subxaanahu wa tacaala uu wax walba awood u leeyahay. haddii alle uu xilliga jiilaalka u keeno midho la isticmaalo ama soo baxa xilliga xagaaga, wuxuu kaloo siin karaa ilmo nin da'weyn iyo haweenay da'weyn ooba dhaafayba xilligii ay wax dhali lahaayeen. sidaas darteeda nebiyullaahi zakariya calayhi salaam gacmaha ayuu kor u taagtay, wuxuuna bilaabay duco taariikhda ku caanbaxday. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala isagoo inooga warramaya qur'aanka kariimka ah dhexdiisa ku yidhi: hunaalika dacaa zakariya rabbah qaala rabbi hablii min ladunka durriyatan طayibatan innaka samiicu dducaa. zakariya wuxuu yidhi, rabbiyow iga sii dhinacaaga ama agtaada ubad wanaagsan, adigu ducooyinka waad maqashaa oo waad ajiibtaa. ducadaani waxay noqotay bilowga mucjiso kale oo aad u weyn, mucjisada dhalashadii nebiyullaahi yaxya calayhi salaam. markii uu nebiyullaahi zakariya calayhi salaam qalbigiisa uu si dhab ah uga ducaystay oo alle subxaanahu wa tacaala baryay, isaga oo ka codsanaya in uu siiyo ubad wanaagsan, ma ahayn duco uu ku salaynayo awooddiisa ama awoodda xaaskiisa. wuxuu ogaa xaqiiqada jirta. wuxuu ahaa nin aad u da'weyn, xaaskiisuna waxay ahayd haweenay da'weyn oo aanan horayba carruur u dhali jirin. markii la eego sababaha dunida, fursadda ay ilmo ku heli lahaayeen waxay ahayd mid aad u fog. balse ambiyadu waxay og yihiin in awoodda alle subxaanahu wa tacaala aysan xad lahayn. wax walba markuu alle subxaanahu wa tacaala ku yidhaahdo kun fayakuun, noqo haddii uu alle ku yidhaahdaba wixii waa ay noqonayaan. nebiyullaahi zakariya calayhi salaam wuxuu sii waday ducadiisa maalmo badan. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala u baryay si qarsoodi ah, wuxuu baryay isagoo oynaya, wuxuu baryay isagoo rajo aad u weyn qaba, ilaa ay ugu dambayntii jawaabtu u timid. maalin uu nebiyullaahi zakariya calayhi salaam ku jiray mixraabkiisa isaga oo salaad ku guda jira, waxaa si lama filaan ah ugu timid bishaaro aad u weyn. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aanka kariimka ah dhexdiisa ku yidhi: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. waxay malaa'igtu ugu bishaaraysay wiil lagu magacaabi doono yaxya, waxayna u sheegtay in uu nebi noqon doono, iyo in uu noqon doono nin sharaf leh, iyo in uu noqon doono nin alle subxaanahu wa tacaala ka cabsada, iyo in uu rumayn doono nebiyullaahi ciisa calayhi salaam. bishaaradani waxay ahayd mid mucjiso ah, sababtoo ah nebiyullaahi zakariya calayhi salaam wuxuu ku jiray da' aad u weyn, xaaskiisuna sidoo kale waxay ahayd haweenay gabowday. haddana alle subxaanahu wa tacaala wuxuu u sheegay in ubad la siin doono. markii uu maqlay bishaaradaas, nebi zakariya calayhi salaam waa uu yaabay. ma ahayn in uu shaki ka qabo awoodda alle subxaanahu wa tacaala, balse wuxuu rabay in uu fahmo sida mucjisadani u dhici doonto. markaas buu wuxuu yidhi: qaala rabbi annaa yakuunu lii ghulaamun waqad balagniya alkibaru wamra'atii caaqir. zakariya wuxuu yidhi: rabbiyow, sidee ayaan wiil ku heli karaa aniga oo gaboobay, xaaskayguna aysan carruur dhali jirin awalkii horeba? waxay ahayd su'aal uu ku doonayay faham dheeraad ah, mana ahayn diidmo.
allana subxaanahu wa tacaala wuxuu oogu jawaabay kadaalika allaahu yafcalu maa yashaa. alle wuxuu sameeyaa wax kasta oo uu doono, ma jiro wax ka reeba awooddiisa ama awooddiisa wax ka hor istaagi kara. ma jiro wax ku adag, ma jiro wax aanan suurtagal u ahayn. nebiyullaahi zakariya calayhi salaam wuxuu codsaday calaamad uu ku ogaan doono in bishaaradu ay bilaabatay. markaas buu alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi: qaala rabbi ijcal lii aayah. qaala aayatuka anlaa tukallima annaasa 3 ayaamin ilaa ramza wadkur rabbaka kahiiran wasabbix bilcashiyi waalibkaar. alle wuxuu u sheegay calaamadaadu waxay noqonaysaa in aadan dadka la hadli doonin ama aadan la hadli karin 3 maalmood, balse ma wada lumin doono awoodda hadalka guud ahaan. wuxuu awoodi doonaa xuska alle, tasbiixda iyo ducada. arrintani waxay ahayd calaamad muujinaysa in bishaaradii alle subxaanahu wa tacaala ay rumoobayso. muddo yar kadib xaaskii nebiyullaahi zakariya calayhi salaam waa ay uuraysatay, kadibna waxay dhashay wiilkii loo ballanqaaday. wiilkaasina wuxuu ahaa nebiyullaahi yaxya calayhi salaam. alle ayaana magaciisa u doortay oo u bixiyey ka hor inta uusan dhalanin. qur'aanku wuxuu yidhi, ama wuxuu alle subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka ah dhexdiisa ku yidhi: yaa zakariya innaa nubashiruka bigulaamin ismuhu yaxya lam najcal lahu min qablu samiya. alle wuxuu u sheegay in magaca yaxye uu yahay magaca u gaarka ah. dadkii ka horreeyey laguma aqoonin magacan. tani waxay ahayd sharaf gaar ah oo alle siiyey nebiyullaahi yaxye calayhi salaam. yaxye ma ahayn ilmo iska caadi ah, wuxuu ka duwanaa carruurta kale waxay ku mashquulsanaan jireen ciyaar iyo madadaallo iyo tartanno carruureed, balse nebiyullaahi yaxye calayhi salaam qalbigiisu wuxuu ku xirnaa alle subxaanahu wa tacaala. alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala: wa aataynaahu alxukma sabiya. alle wuxuu yaxye siiyey xikmad, fahan, aqoon iyo garasho isagoo weli yar ama weli da'diisu ay aad u yar tahay. culimmada qaar waxay sheegeen in markii carruurta kale ay ciyaar ugu yeereen uu ku yidhi: aniga la iima abuurin ciyaar oo keliya. wuxuu fahmay mas'uuliyadda alle saaray subxaanahu wa tacaala. wuxuu noqday wiil cibaado badan. nebi yaxye wuxuu ahaa nin run badan, daacad ah, geesi ah, cibaado badan, alle ka cabsi badan. marna kama baqi jirin in uu runta sheego, xitaa haddii ay runtiisa nacayaan ama aysan jeclayn kuwa awoodda leh. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay: wabarran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran casiya. yaxye wuxuu ahaa mid waalidkiisa u naxariista oo baari u ah, mid ateeca, mid aanan kibir lahayn iyo mid aanan dadka dulminin. tani waa mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee ambiyada alle subxaanahu wa tacaala. nebi yaxye iyo nebi ciise calayhim assalaam waxay ahaayeen qaraabo dhow. rasuulku sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi: فلما خلصت إلى السماء الثانية إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة. رواه البخاري ومسلم. nebigu sala allahu calayhi wasalama wuxuu sheegay in habeenkii la dheelminayey ee al-israa waalmicraaj uu arkay nebi yaxye iyo nebi ciise calayhim assalaam. wuxuuna sheegay in ay ahaayeen ilmo habreed ama 2 wiil oo ay kala dhaleen 2 hablood oo walaalo ah. taas macnaheedu waa in ay ahaayeen qaraabo aad isugu dhow. waxay wada noolaayeen xilli isku dhow, waxayna wada faafinayeen fariinta tawxiidka. hadda reerkan uu alle subxaanahu wa tacaala doortay waxaa ka mid noqday ama waxaa ka mid ah cimraan iyo xaaskiisii xanna iyo maryamata binti cimraan iyo nebiyullaahi zakariya iyo nebiyullaahi yaxya calayhim assalaam. balse mucjisada ugu weyn weli ma aysan dhicin. waxaa soo dhow dhacdo aysan taariikhda bani aadamku horay u arag, dhacdo uu alle subxaanahu wa tacaala ku muujin doono awooddiisa, dhacdo ka dhigi doonta maryama haweenayda ugu caansan taariikhda.
dhacdadaasoo noqon doonta dhalashadii nebiyullaahi ciisa calayhi salaam isaga oo aanan aabbo lahayn. qisadan ayaana ah qisada ugu layaabka badan ama qaybta ugu layaabka badan qisooyinka reer aali cimraan. markii maryamo calayha salaam ay ku kortay baytalmaqdes waxay noqotay haweenay lagu yaqaano cibaado badan, daahirnimo, xishood iyo alle kacabsi iyo daacadnimo. maalinba maalinta ka dambaysa waxay sii kordhinaysay cibaadada. waxay ahayd haweenay qalbigeeda oo idil u hibaysay alle subxaanahu wa tacaala. waxaa la gaaray xilligii uu alle subxaanahu wa tacaala doonayay in uu maryamo siiyo sharaf aysan helin ama aanan la siinin haweenay kale oo dunida soo martay. waa sharaf lagu xusay qur'aanka kariimka ah oo la xusi doono ilaa iyo qiyaamaha. sharaf ay malaa'igtu ugu timid si ay ugu bishaarayso. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. waxay malaa'igtu maryamo u sheegtay oo ugu bishaaraysay 3 sharaf oo waaweyn. tan koowaad waa in uu alle doortay subxaanahu wa tacaala. waxay ka dhigan tahay in alle uu u xushay howl aad u weyn iyo maamuus gaar ah. tan labaadna waa in alle subxaanahu wa tacaala uu daahiriyey. waxay ka dhigan tahay ama wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ka daahiriyey dembiyada, eedaha, dhaqamada xunxun iyo falalka foosha xun. tan saddexaadna waa in alle subxaanahu wa tacaala uu ka saramariyey dumarkii dunida. taasi waxay ahayd sharaf aad u weyn. culimmada badankoodu waxay sheegeen in maryamo ay ka mid tahay haweenkii ugu fadliga badnaa ee dunida soo maray. kadibna maalin kale ayay malaa'igtu ugu timid bishaaro kale oo ka yaab badan bishaarooyinkii hore. waxay ku tiri ama waxay ku yidhaahdeen: yaa maryamu ina allaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu lmasiixu ciisa bnu maryam wajiihan fi ddunya waalaakhirah wa min almuqarabiin. waxay malaa'igtu ugu bishaaraysay wiil aad u qiimo badan oo nebi noqon doona oo sharaf ku leh adduun iyo aakhiro, sidoo kalena ah mid alle u dhow subxaanahu wa tacaala. balse maryamo waa ay la yaabtay, sababtoo ah weligeeda nin ma taabanin, weligeeda guur ma aysan soo marin, weligeeda xumaan ma aysan samaynin. markaas bay waxay weydiisay oo waxay ku tidhi: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. maryamo waxay tidhi: rabbiyow sidee ayaan ilmo ku dhalayaa iyadoo uusan nin i taabanin. su'aashaani ma ahayn diidmo, waxay ahayd yaab iyo faham raadis. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu jawaabay: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu sameeyaa wax allaala wuxuu doono. aadam waxaa la abuuray aabbe la'aan iyo hooyo la'aan. xaawana sidoo kale waxaa la abuuray aabbe la'aan iyo hooyo la'aan. dadka intooda badan waxaa laga abuuraa aabbe iyo hooyo. nebiyullaahi ciise calayhi salaam alle subxaanahu wa tacaala wuxuu doonay in uu ka abuuro hooyo balse aabbe la'aan, si uu u muujiyo awooddiisa aanan xadka lahayn. markii wakhtigii alle subxaanahu wa tacaala qadaray la gaaray, jibriil calayhi salaam ayaa maryamo u yimid. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. malakul jibriil calayhi salaam ayaa maryamo u yimid isagoo leh qaab nin oo aad u qurux badan. maryamo markii ay aragtay nin qalaad oo horteeda taagan waa ay ka baqday. waxay ahayd haweenay xishood badan. isla markiiba alle ayay uga magan gashay subxaanahu wa tacaala. qaalat innii acuudu biarraxmaani minka in kunta taqiya. waxay tidhi: waxaan kaaga magangalayaa alle subxaanahu wa tacaala haddii aad tahay qof alle ka baqa. tani waxay muujinaysaa xishoodkeeda, daahirnimadeeda iyo iimaankeeda. markaas ayuu jibriil wuxuu u sheegay in uusan ahayn nin caadi ah. jibriil wuxuu ku yidhi: innamaa ana rasuulu rabbiki liahaba laki ghulaaman zakiya.
jibriil wuxuu u sheegay in uu yahay rasuul ama farriinside ka yimid xagga alle subxaanahu wa tacaala. waxaa loo soo diray in uu bishaaro gaarsiiyo. bishaaradaasina waxay ahayd in la siin doono wiil daahir ah, wiil nebi noqon doona, wiil mucjiso noqon doona, wiil dunida oo dhan taariikhdeeda beddeli doona. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fanafakhnaa fiiha min ruuxina. kadibna maryama calayha assalaam waxay qaaday nebiyullaahi ciisa calayhi assalaam uurkiisa. ma jirin nin taabtay, ma jirin guur ay soo martay, ma jirin sabab caadi ah. waxay ahayd mucjiso uu alle sameeyey subxaanahu wa tacaala sidii uu horayba u abuuray abuuna aadam calayhi assalaam. maryamo calayha assalaam markii ay uurka qaaday waxay ka fogaatay dadka. waxay ogayd in dadka badankoodu aysan fahmi doonin wixii dhacay. waxay u guurtay meel dadka ka fog. waxay maalmo badan ku qaadatay cibaado, samir, duco iyo sugitaanka amarka alle subxaanahu wa tacaala. muddo kadibna waxaa la gaaray wakhtigii dhalmada. markii uu xanuunka dhalmada ku bilowday, maryamo waxay timid geed timireed hoostiisa. xanuunka iyo culayska xaaladda ayaa aad ugu adkaaday. waxay dareentay murugo aad u weyn. waxay ka baqaysay waxa ay dadku ku odhan doonaan. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aanka kariimka ah dhexdiisa ku yidhi faajaa'aha almakhaadu ilaa jidci nakhla. kadibna waxay dhashay nebiyullaahi ciisa calayhi assalaam isagoo caafimaad qaba, isagoo nebi noqon doona, isagoo ah addoon alle subxaanahu wa tacaala, isagoo ah mucjiso ka mid ah mucjisooyinka ugu waaweyn ee taariikhda bani aadamka. markii ay ku jirtay xaaladdaas adag, alle subxaanahu wa tacaala ma uusan dayicin. wuxuu siiyey biyo, timir cusub iyo daryeel rabbaani ah. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wahuzzii ilayki bijidci nakhlati tusaaqit calayki rataban janiya fakulii washrabii waqarrii cayna. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu addoontiisa barayaa muhiimadda aadka u weyn. inkastoo uu awood u lahaa in uu timirta si toos ah ugu soo dejiyo, haddana wuxuu amray maryama in ay geedka ruxdo. tani waxay ina tusaysaa in qofku dadaalo, kadibna alle uu u barakaynayo dadaalkiisa subxaanahu wa tacaala. dhalashadii nebi ciise calayhi assalaam ma ahayn dhammaadka mucjisooyinka. waxaaba hadda bilaabanaya dhacdo kale oo ka yaab badan. markii ay maryama ilmaheeda yar ay kula noqotay reerkeedii, dadkii waxay ku eedeeyeen arrin aad u weyn. waxay ku tuhmeen wax aysan samaynin. balse alle subxaanahu wa tacaala wuxuu doonayay in uu addoontiisa daahirta ah ka difaaco eed kasta. mucjisada xigtana waxay ahayd nebi ciise calayhi assalaam oo hadlay isagoo weli dherabta ku jira oo dhallaan yar ah. taasina waxay ka mid noqon doontaa mid ka mid ah mucjisooyinka ugu waaweyn ee taariikhda. markii ay maryama calayha assalaam dhashay nebi ciise calayhi assalaam, alle subxaanahu wa tacaala wuxuu amray in ilmaha ay kula noqoto dadkeedii. waxay ahayd xaalad aad u adag. maryama waxay ogayd in dadka badankoodu aysan fahmi doonin xaqiiqada dhacday. waxay ogayd in qof kasta oo arka ilmo yar oo ay sidato uu su'aalo badan isweydiin doono. balse waxay sidoo kale ogayd in alle subxaanahu wa tacaala yahay kan ilaalinaya addoommihiisa saalixiinta ah. sidaas darteed waxay ku noqotay reerkeedii iyadoo ilmaha yar sidata. markii bani israa'iil ay arkeen maryama oo ilmo sidata, waxay bilaabeen in ay hadallo adag ku yidhaahdaan. waxay la yaabeen sida ay ilmo ku heshay iyadoo aanan la aqoonin nin ay guursatay. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi faatat bihi qawmaha taxmiluh qaaluu yaa maryamu laqad ji'ti shay'an fariya yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuki imra'a saw'in wamaa kaanat ummuki bagiya. dadku waxay ku yidhaahdeen maryanay arrin aad u weyn baad la timid. waxay xasuusiyeen in aabbaheed ahaa nin wanaagsan, hooyadeydna ay ahayd haweenay saalixad ah, qoyskeeduna ahaa qoys cibaado iyo sharaf lagu yaqaanay. sidaas darteed waa ay la yaabeen wixii ay arkeen.
balse Maryan ma aysan doodin ama ma aysan la doodin, ma aysan isku dayin in ay isdifaacdo, ma aysan bilaabin muran. Waxay ku kalsoonayd Alle subxaanahu wa tacaala. Markii dadku hadalka sii wadeen, Maryama waxay farta ku fiiqday ilmaheeda yar. Kadibna dadkii waa ay la yaabeen, waxayna is yiraahdeen, sidee baan ula hadli karnaa ilmo yar oo dherabta ku jira ama ilmo yar oo dhallaan ah oo weliba hadal wax u dhowba aanan gaarin. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: qaaluu kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiya. Dadku waxay u arkayeen arrintaas wax aanan suurtagal ahayn. Ilmo yar ma hadlo, ilmo yar khudbad ma jeediyo, ilmo yar isma difaaco, balse markuu Alle subxaanahu wa tacaala wax doono, wax walba waa ay dhacayaan. Markaas baa waxaa dhacday mucjizo aanan horay taariikhda loogu arkin. Ilmihii yara ayaa hadlay, wuxuuna yidhi: qaala innii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Eraygii ugu horreeyay ee uu Nabi Ciise calayhi salaam ku hadlay wuxuu ahaa: innii cabdullah, anigu waxaan ahay addoonkii Alle. Tani waa qodob aad u muhiim ah. Nabi Ciise calayhi salaam ma uusan sheegin in uu ilaah yahay, ama in uu wiilka Alle yahay, ama in uu Alle qayb ka yahay midna. Waxa ugu horreeyay ee uu sheegay wuxuu ahaa in uu yahay addoon Alle subxaanahu wa tacaala. Kadibna wuxuu yidhi, ama wuxuu sheegay in Alle subxaanahu wa tacaala nebi ka dhigay, iyo in Alle kitaab siin doono, iyo in Alle subxaanahu wa tacaala ku barakeeyey meel kasta oo uu joogo, iyo in lagu amray salaada iyo zakada, iyo in uu hooyadiisa u naxariisan doono ama in uu u baarinimo fali doono. Sidaas ayuu Alle subxaanahu wa tacaala Maryamo uga difaacay eedeyntii loo jeediyey. Nabi Ciise calayhi salaam wuxuu ku koray jawi ay ka buuxaan cibaado, taqwo, cilmiga diinta. Wuxuu ka mid ahaa dadka ugu caqliga badan xilligii uu noolaa. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey xikmad, cilmi, fahan qoto dheer. Markii uu gaaray da'dii nebinimada, Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo diray bani Israa'iil. Risaaladiisuna waxay ahayd sii wadidda farriimihii ambiyadii isaga ka horreeyey. Wuxuu ugu baaqay dadka cibaadada Alle subxaanahu wa tacaala keliya, ama in ay Alle subxaanahu wa tacaala keligiisa caabudaan, iyo in ay ka fogaadaan shirkiga, iyo in ay ateecaan amarada Alle subxaanahu wa tacaala, iyo in ay Alle subxaanahu wa tacaala u toobad keenaan, iyo in ay isdaahiriyaan. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: warasuulan ilaa bani Israa'iil. Nabi Ciise markii hore waxaa loo diray bani Israa'iil. Ujeeddadiisuna waxay ahayd in uu dib ugu celiyo jidka saxda ah ee tawxiidka. Isla farriintii ay wateen Nabi Nuux, Nabi Ibraahim, Nabi Muuse, Nabi Zakariye iyo Nabiyullaahi Yaxya calayhimussalaam. Dhammaantood waxay dadka ugu yeerayeen in ay Alle subxaanahu wa tacaala keligiisa caabudaan. Mid ka mid ah waxyaabihii ugu waaweynaa ee Nabi Ciise calayhi salaam uu sameeyey waxaa ka mid ahayd in uu ummaddiisa ugu bishaareeyey imaatinka Nabiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wassalaam. Alle wuxuu yidhi: wamubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu Axmed. Nabi Ciise wuxuu dadka u sheegay in mustaqbalka uu imaan doono nebi weyn, magaciisuna uu yahay Axmed. waana mid ka mid ah magacyadii Nabiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wassalaam. Tani waxay caddaynaysaa in dhammaan ambiyadu ay isku farriin wateen. Farriintaasina waxay ahayd tawxiidka Alle subxaanahu wa tacaala. Alle wuxuu Nabi Ciise calayhi salaam siiyey mucjizooyin badan oo waaweyn. Mucjizooyinkaas waxay ahaayeen daliil cad oo muujinaya in uu yahay nebi dhab ah. balse dhammaan mucjizooyinkaasi waxay ku dhaceen idinka Alle subxaanahu wa tacaala, marna ma ahayn awood uu isagu iska lahaa ama isaga u gaar ah.
markii uu nebiyullaahi ciise bnu maryam calayhi salaam bilaabay inuu dadka ugu yeero cibaadada alle subxaanahu wa tacaala iyo towxiidka, bani israa'iil waxay mar kale muujiyeen dhaqankii ay ku caanbaxeen qarniyo badan. taariikhda bani israa'iil waxay ahayd taariikh ay ku jireen laba kooxood, koox yar oo rumayn jirtay ambiyada iyo koox badan oo beenin jirtay ambiyada. sidaas darteed markii nebi ciise calayhi salaam yimid, dadka badankoodu ma aysan rumaynin, inkastoo uu la yimid mucjisooyin aanan qof bani aadam ahi awoodin. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: annii akhluqu lakum min adtiini ka hay'ati atayri fa anfukhu fiihi fayakuunu tayran biidni illaah. nebi ciise calayhi salaam dhoobo intuu qaado ayuu wuxuu ka samayn jiray qaab shimbir oo kale, kadibna waa uu ku afuufi jiray. markaas ayay alle subxaanahu wa tacaala idinkiisa shimbirtaasi u duuli jirtay sida shimbir nool oo kale. qodobka ugu muhiimsan ee ay aayaddu xustayna waa biidnillaah, alle subxaanahu wa tacaala idinkiisa. mucjisadu ma ahayn awood nebi ciise uu iska lahaa, waxay ahayd calaamad uu alle siiyey subxaanahu wa tacaala. xilligaas waxaa jiray dad ku dhashay indhola'aanta, dhakhaatiirtuna waxba uma aysan qaban karin, balse wuxuu alle subxaanahu wa tacaala mucjiso ku siiyey nebi ciise calayhi salaam: wa ubri'u alakmaha waalabrasa biidni illaah. al-akmah waxaa loola jeedaa qof indhola'aanta ku dhashay. nebi ciise calayhi salaam wuxuu bogsiin jiray dadkaas, indhahoodii ayuu dib ugu furi jiray, waxayna dib u arki jireen adduunka. balse mar kale qur'aanku wuxuu caddeeyey wax walba waxay ku dhacayeen idinka alle subxaanahu wa tacaala. baraskuna sidoo kale wuxuu ahaa cudur si aad ah looga cabsado. dadkii cudurkan qabayna bulshada waa laga fogayn jiray, balse markii nebi ciise calayhi salaam uu gacantiisa saaro, alle subxaanahu wa tacaala idinkiisa waa ay bogsan jireen. dadkaas oo sannado badan xanuunsanaa ayaa caafimaadkoodii dib u heli jiray. tani waxay ahayd calaamad weyn oo muujinaysa runnimadiisa ama nebinimadiisa. mucjisada ugu layaabka badanna waxay ahayd tan alle subxaanahu wa tacaala uu yidhi: wa uxyi lmawta biidni illaah. nebi ciise ma uusan sheegin aniga ayaa dadka nooleeya ama soo nooleeya, balse wuxuu yidhi biidni illaah, alle subxaanahu wa tacaala idinkiisa ayaan ku soo nooleeyaa. markii alle doono subxaanahu wa tacaala qof dhintay inuu dib u noolaado, nebi ciise wuxuu noqon jiray sababta muuqata ee mucjisada, balse awoodda dhabta ah waxay ahayd awoodda alle subxaanahu wa tacaala. tani waxay ahayd mid ka mid ah mucjisooyinkii ugu waaweynaa ee la siiyey nebi ciise calayhi salaam. alle subxaanahu wa tacaala sidoo kale wuxuu nebi ciise calayhi salaam siiyey calaamad kale: wa unabbi'ukum bima ta'kuluuna wamaa taddakhiruuna fii buyuutikum. nebi ciise wuxuu dadka u sheegi jiray waxa ay cuneen, waxa ay guryahooda ku qarinayeen. arrintaani waxay ahayd daliil kale oo muujinaysa in uu yahay nebi alle oo alle uu soo diray subxaanahu wa tacaala, sababtoo ah qofka caadiga ah ma ogaan karo waxyaabahaas oo kale. inkastoo mucjisooyinkaas oo dhan uu u keenay nebi ciise calayhi salaam qowmkiisa, haddana dad yar ayaa rumeeyey. sida mar kasta dhacda markii ambiyadu ay u yimaadaan, dadka qaar waxay doorbidaan kibirka iyo isla weynida halkii ay xaqa raaci lahaayeen, balse waxaa jiray koox yar oo daacad ah. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. xawaariyiintu waxay ahaayeen saxaabadii ama saaxiibadii ugu dhowaa nebi ciise calayhi salaam. waxay ahaayeen rag daacad ah. waxay yidhaahdeen: waxaan nahay gargaarayaashii alle subxaanahu wa tacaala. waxay rumaysteen, waxay difaaceen, waxayna la garab istaageen nebi ciise calayhi salaam. maalin maalmaha ka mid ah, xawaariyiintu waxay nebi ciise calayhi salaam ka codsadeen calaamad kale oo aad u weyn. waxay rabeen in ay qalbigooda ku sii xasiliyaan. markaas bay waxay ku yidhaahdeen: hal yastatiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idatan min assamaa.
rabbigaagu ma awoodaa inuu samada inooga soo dejiyo saxan ballaaran oo ay raashin ka buuxaan? Nabi Ciise calayhi salaam wuxuu ugu jawaabay in ay Alle subxaanahu wa tacaala ka cabsadaan oo wuxuu ku yidhi Alle ka baqa. balse markii ay ku adkaysteen codsigooda wuxuu Nabi Ciise calayhi salaam isagoo Alle subxaanahu wa tacaala baryaya yidhi اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Nabi Ciise calayhi salaam wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala ka codsaday in uu u soo dejiyo wixii ay ka codsadeen, taasoo u noqon doonta calaamad xaqiijinaysa runnimadiisa, sidoo kale u noqonaysa nimco ay ku farxaan. Alle subxaanahu wa tacaala waa uu ka aqbalay ducadaas. Saxankii cuntada ahaa ama miiskii cuntada ahaana waa loo soo dejiyey, waxayna ahayd mucjizo aad u weyn oo ay arkeen saxaabadii ama xawaariyiintii Nabi Ciise calayhi salaam. balse nasiib darro, mucjizooyinkaas kadib dad badan ma aysan towbad keenin. waxay sii wadeen beeninta, kibirka iyo caasinimada. qaar badan waxay bilaabeen in ay maleegaan sidii ay Nabi Ciise calayhi salaam ku dili lahaayeen. waxay ka baqeen in dadku ay wada raacaan, waxay ka baqeen in uu saameyntooda baabi'iyo, waxay ka baqeen runta uu sheegayo. sidaas darteed waxay galeen shirar qarsoodi ah, waxayna qorsheeyeen shirqool weyn. shirqoolkaasi wuxuu ahaa in la qabto Nabi Ciise calayhi salaam kadibna la dilo. balse waxay iloobeen xaqiiqo aad u weyn. qofka Alle subxaanahu wa tacaala ilaaliyo cidna ma dili karto ilaa waqtiga Alle subxaanahu wa tacaala uu u qadaray uu ka dhaco. markii shirqoolkoodu u diyaar garoobay ama uu diyaar u noqday, waxay isku dayeen in ay gacanta ku dhigaan Nabi Ciise calayhi salaam, balse Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu diyaariyey qorshe kale oo ka awood badan qorshahooda. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wamakaruu wamakara allah wallahu khayru lmaakiriin. cadowgu qorshe ayay maleegeen, balse Alle subxaanahu wa tacaala ayaa qorshahooda ka adkaaday. qorshaha Allena subxaanahu wa tacaala mar walba waa mid ka sarreeya qorshaha dadka. waxa xigayna waxay ahayd dhacdadii ugu layaabka badnayd taariikhdii Nabi Ciise calayhi salaam. markii uu nabiyullaahi ciise bnu maryam calayhi salaam uu sanado badan dadka ugu baaqayay towxiidka, cibaadada Alle iyo kan fogaanshaha shirkiga, waxaa sii kordhayay nacaybka ay madaxdii bani Israa'iil u qabeen. waxay arkeen in dad badan ay maqlaan hadalladiisa, waxay arkeen in mucjizooyinkiisu ay dadka ka yaabinayaan, waxay arkeen in runta uu wado ay halis ku tahay awooddoodii iyo danahoodii. sidaas darteed waxay go'aansadeen in ay meeshaba ka saaraan. balse waxay iloobeen xaqiiqada ugu weyn oo ah in ambiyada Alle subxaanahu wa tacaala uu Alle ilaaliyo. madaxdii bani Israa'iil waxay ku kulmeen si qarsoodi ah, waxayna bilaabeen in ay ka tashadaan sidii Nabi Ciise calayhi salaam loo soo qaban lahaa. qorshahoodu wuxuu ahaa in la qabto, in la bahdilo iyo in la dilo. waxay u maleeyeen in haddii ay dilaan Nabi Ciise calayhi salaam ay baabi'i doonto farriintiisa. balse taariikhdu waxay marar badan caddaysay in dilka ambiyada iyo saalixiintu uusan baabi'inin xaqa. marar badan xaqii waa uu sii xoogaystaa markii uu cadowgu la dagaalamo. markii shirqoolku soo dhowaaday, Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu Nabi Ciise calayhi salaam siiyey bishaaro iyo xasillooni aad u weyn. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Alle wuxuu Nabi Ciise calayhi salaam u sheegay in uu ka badbaadin doono gaalada, iyo in uu kor u qaadi doono, iyo in uu ka daahirin doono eedaha cadowgu faafinayo, iyo in kuwa xaqa raacay laga sare marsiin doono kuwa xaqa diiday. waxay ahayd bishaaro aad u weyn, waxay ahayd damaanad qaad rabbaani ah. markii ay ciidamadii u soo dhaqaaqeen soo qabashadii Nabi Ciise calayhi salaamna, Alle subxaanahu wa tacaala waa uu ka badbaadiyey nebigiisa.
alle wuxuu qur'aanka kariimka ah dhexdiisa ku yidhi وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم قرآنku si cad ayuu u sheegay in nebi ciise calayhi salaam aanan la dilin iyo in nebi ciise calayhi salaam aanan la salbinin, balse waxa dhacay waxay ahaayeen in qof kale loo ekaysiiyey nebi ciise calayhi salaam. dadkaasna waxay u maleeyeen in ay soo qabteen nebi ciise, balse dhab ahaantii ma aysan qabanin, mana aysan dilin, mana aysan salbinin. qur'aankuna waa uu sii caddeeyey bal rafacahu allaahu ilayhi wa kaana allaahu casiizan xakiima. alle wuxuu kor ugu qaaday nebi ciise calayhi salaam samada, wuxuu ka badbaadiyey cadowgiisa, wuxuuna ka ilaaliyey shirqoolkii loo maleegay. sidaas darteeda nebi ciise calayhi salaam waa uu nool yahay, lamana dilin, lamana salbinin, wuxuuna joogaa meesha uu alle doonay subxaanahu wa tacaala. wuxuuna dib adduunka ugu soo noqon doonaa ama dhulka dib ugu soo noqon doonaa markii uu qiyaamuhu soo dhowaado. nebi ciise calayhi salaam wuxuu ka mid yahay ambiyada ugu waaweyn. waxaa lagu tiriyaa in uu ka mid yahay ululcasmi min alrusul, ambiyada ugu samirka badan uguna waaweyn. kuwaas waxaa ka mid ah nebi nuux, nebi ibraahim, nebi muuse, nebi ciise iyo nebiyullaahi muxamed calayhim assalaatu wassalaam. dhammaantooduna waxay wateen hal farriin oo isku mid ah. farriintaasina waxay ahayd in alle subxaanahu wa tacaala keligiisa la caabudo. rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay in ambiyada oo dhan diintoodu ay mid tahay, inkastoo shareecadoodu ay kala duwanaan karaan. asalka farriintooduna waa towxiid, iimaan iyo ateecidda alle subxaanahu wa tacaala. sidaas darteeda nebi ciise calayhi salaam iyo nebi muxamed sallallahu calayhi wasallam waxay ahaayeen walaalo dhinaca nebinimada ah. mid ka mid ah caqiidooyinka waaweyn ee haddii aynu muslimiinta nahay aan rumaysannahayna waxaa ka mid ah in nebi ciise calayhi salaam uu dib dunida ama dhulka ugu soo laaban doono. tani waxay ku timid qur'aanka kariimka ah iyo sunnaha nebiga sallallahu calayhi wasallam. rasuulkii alle sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay in aakhiru zamaanka uu nebi ciise calayhi salaam soo degi doono, wuxuuna ahaan doonaa xaakim cadaalad badan, hogaamiye xaq ah iyo addoon alle subxaanahu wa tacaala oo daacad ah. dajaalku wuxuu noqon doonaa fitnada ugu weyn ee ay dunidu aragto. dad badan ayuu marin habaabin doonaa, balse alle subxaanahu wa tacaala nebi ciise gacantiisa ayuu ku baabi'in doonaa. rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu inoo sheegay in nebi ciise calayhi salaam uu dili doono dajaalka, markaas bay fitnadii ugu weyneyd dhammaan doontaa. xadiisyada saxiixa ah waxay sheegayaan in nebi ciise calayhi salaam uu jebin doono saliibka, sidoo kale uu dili doono doonfaarka, sidoo kale uu baabi'in doono waxyaabaha lagu been abuurtay diintiisa. wuxuu dadka ugu yeeri doonaa diinta islaamka saxda ah, towxiidka saafiga ah iyo cibaadada alle subxaanahu wa tacaala. markuu nebi ciise calayhi salaam soo dego waxaa jiri doonta xilli nabad ah oo ammaan ah oo barwaaqo aad u fara badan la heli doono. dulmigu waa uu yaraan doonaa ama waa uu dhammaan doonaa. cadaaladdu waa ay fidi doontaa. dadku waxay ku noolaan doonaan xasillooni aanan horay loo arag. waxay noqon doontaa mid ka mid ah xilliyada ugu quruxda badan taariikhda bani aadamka. اللهم اهدنا الصراط المستقيم وثبتنا على دينك واجعلنا من عبادك الصالحين وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ugu dambayntii daawadayaasheena sharafta leh ha iloobina muuqaalka in aad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina.
faddaallu cala alkhayri ka faacilih. qofkii dadka khayrka tusiya wuxuu la mid yahay qofkii khayrka sameeyey ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam.